kacaanka warshadaha waxa uu qeexayaa xilliyadii isbeddel dhaqaale mid farsameeye mid horumar ay samaynayeen aadanaha. dadku waxay had iyo jeer isticmaali jireen tiknoolajiyadda ay heli karaan si ay uga caawiso maareynta noloshooda. kacaankii koowaad ee warshaduhu waxa uu ku salaysnaa in shaqooyinka gacanta loo beddelo mashiinno sida samaynta dharka, waxaana uu kacaankii koowaad ka curtay UK 1760kii. kacaankii koowaad ee Ingiriiska ka curtay waxaa lafdhabar u ahaa helitaanka steam engine ama mashiinka ku shaqeeya uumiga. mashiinkan waxaa loo adeegsaday dhuxul dhagax kaasoo dhaqaajin kara wixii lagu xiro sida tareennada iyo warshadaha. kacaankii labaad ee warshaduhu waxa uu bilowday dabayaaqadii qarnigii 19aad iyo bilowgii qarnigii 20aad, waxaana la hormariyey tiknoolajiyaddii iyo farsamadii, waxaana bilowday in la isticmaalo koronto. markii la helay korontada, waxay aqoontii bulshada ee korortay sababtay in la horumariyo isticmaalka birta, waxaana la ikhtiraacay in la sameeyo baabuur, diyaarado, rediyo iyo taleefannada. waxaa fududaaday isu socodkii iyo xiriirkii bulshada. kacaankii labaad ee warshadaha waxaa loo arkayey midkii ugu muhiimsanaa. magaalooyinkii way koreen, warshaduhuna way fideen. noloshii dadkuna waxay noqotay mid wakhtiga laga fiiriyo saacadda halkii qorraxda laga fiirin jiray. kacaankii saddexaad ee warshaduhu waxa uu bilowday 1970kii. waxa uu hormuud u ahaa horumarka tiknoolajiyadda dunida. waxaa la hormariyey isgaarsiinta iyo socodkii, waxaana la soo saaray kombiyuutar fududaynaya howlaha muhiimka ah. sidoo kale waa wakhtigii uu bilowday curashadii internetka oo ah wax ugu weyn ee dunida ay ku xiriirto, isaga oo fududeeyey wax waliba oo la xiriiray noloshii bulshada. Soomaaliya intii lagu guda jiray kacaankii saddexaad waa xilli ay ku jirtay inta badan dagaalla sokeeye iyo dhammaadkii dowladdii kacaanka. haddana ma aysan yareen dadaalladii ay samaynayeen shirkadihii ka aasaasmay gudaha dalka, waxaana dadkii lagu xiray dunida inteeda kale iyadoo loo keenay adeegyada muhiimka u ah nolosha sida isgaarsiinta. kacaankii afraad ee warshadaha waa midka aan maanta ku jirna waa midka ugu casrisan, waxaana loo tixgeliyaa in bilowgiisa uu yahay wixii ka dambeeyey 2010kii. kacaankan afraad waxa uu sameeyey bulsho lagu magacaabo bulsho casri ah iyo duni dijitaal ah. waxaa soo baxay sirdoonka macmalka ah, aaladda virtual reality, smartphones, smart sensor, data visualization iyo casriyeynta aqoonsiga qofka. waxaa horumaray habkii ay bulshada iyo qofka u noolaayeen, waxaana samaysmay isku xir aad u weyn. shirkadihii dalkeenna ka jiray kama joojin bulshada Soomaaliyeed inay la jaanqaadaan kacaankii afraad ee tiknoolajiyadda. maadaama kacaanka afraad uu yahay mid ku dhisan isku xir, waxaa la bilaabay bixinta adeegga internetka 4G, waxaana la ikhtiraacay adeegga EVC Plus kaasoo noqday adeegga loogu isticmaalka badan yahay Soomaaliya, waxaana bulshadii Soomaaliyeed loo fududeeyey isku xirkooda iyo maareynta maaliyaddooda.